السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا muuqaal ku saabsan muuqaal samaynta. waxaan isticmaali doonaa software-ka la yiraahdo Filmora 9. waxa ku koobnaan doona barnaamijkeena ama video-geena inaynu soo download kareyno interface-ka aynu eegno soo eegyahay media soo import kareyno dabadeedna aynu maamulno dhammaan clipska timeline-ka dabadeedna video caadi ka soo saarno. waxaas idin soo jeedin doona anigoo ah Liban jaamac aynu bilowno casharkeena. si aad u soo download garaysato programka Filmora 9 waxaad soo furanaysaa browser-kaaga dabadeedna waxaad galaysaa google.com waxaad ku qoraysaa Filmora 9 enter baad oranaysaa waxuu toos ku geyn doonaa markaa resultskii waxaad ku dhufanaysaa linkiga ugu horeeya markaad ku dhufatid waxaad soo download garaysan doontaa programka free download-ka ku dhufan doontaa markaad ku dhufatid free download-ka wuxuu bilaabi doonaa inuu soo download gareeyo start download button ama haddaan kugu jirin IDM halkan uu soo dhigi doonaa hoosta. okay anigu horaan soo download gareystay uma baahni markaa inaan mar labaad soo download gareeyo markaa waxaan soo furanayaa programkii halkii aan igu soo download gareysmay. okay saad arkaysaan waa kan setupkiisii double click waan siinayaa dhammaan linkiyada aad ka soo download gareysan karto waxaan kuu soo dhigi doonaa description-ka hoose ee video-ga. waxaad oranaysaa yes dabeetana install baad oranaysaa mar horaan ku shubay dabcan uu soo qabanaya okay dheh uu wadaya markaa uu bilaabaya marka waad iska sugaysaa ilaa intuu 100% ka gaadhayo. okay sidaad arkaysa waa uu dhameeyey dabeetana waxaad ku dhufanaysaa marka start now marka wuxuu ku geenayaa website-ka iska soo xiraysaa programka ayuu bilaabi doonaa saad arkaysaan. okay saad arkaysaan barnaamijkii waa uu soo kiciyey. okay marka si aynu uga dhigno programka mid noo shaqeeya waqti badan waxaynu iska soo xiraynaa programka dabcan crack ayaad labada file ku jira ayaad soo koobiyeenaysaa labada file waxay ka dhigayaan inaad isticmaashid waqti badan oo lifetime ah waad soo koobiyeenaysaa dhammaan waxaad kasoo download garaysan doontaa crack-ga linkiga aan hoosta soo dhigi doono description-ka copy baad oranaysaa waxaad tegaysaa markaa c-da tegaysaa program files times 32-ga dabeetana waxaad tegi doontaa Wondershare Filmora halkan ayaad ku paste gareyn doontaa right click baad siinaysaa paste. okay sidaasi ayuu markaa programkii noogu shaqeynaya waqti badan aynu isticmaali karayna markaa Wondershare Filmora 9 baan ku dhufanayaa uu soo kacayaa. okay saad arkaysaan imika si fiican ayuu noogu shaqeynayaa markaa dad doonaysa new project halkan ku dhufanaysaa the project library project-yada hore u samaysan halkan ka gelaysaa soo furanaysaa open baad oranaysaa marka qaabkaas ayaa loogu shubaa Wondershare Filmora 9. Filmora 9 waxa uu ka kooban yahay interface-kan aad halkan ku arkaysaan dhammaan shayadana dhan baran doonaa. halkan waxaa ah media halkii aad ka soo gelinaysay dhammaan video-yada halkan waa meeshii codka aad ka soo gelinaysay ama effects-ka kala duwan halkan waa titles-kii kala duwan qoraalada markaad doonaysay inaad soo geliso video-ga dhexdiisa transitions waxa la yiraahdo waan arki doonaa oo ah iyaguna waxyaalaha labada video loo dhaxaysiinayo effects-ka oo ah iyaguna filters-kii overlays-kii waxyaalo badan ka kooban arki doono elements-kii baa iyaguna kamid ah oo dhammaan video-yada doonaysay waxyaalaha aad dul saartid oo kale love ama journey shapes kala duwan aad dul saartid split screen oo ah markaad video-yada labada dhinac isbarbar dhigaysid halkan waxaad ku arkaysaa export oo ah marka aad dhamayso video-ga si aad ka dhigaysid dabadeedna video caadi ah. halkan waxa inoo ah menus kala duwan oo ah file markaad new project furanaysid open project markaad media soo gelinaysid
toolskan waxyaalahan dhan waan arki doonaa. halkan waa ah preview pane ama meesha aad wax ka eegaysid videoga tusaale ahaan siduu eegay double click hadaan siiyo waxaad halkan ka arkaysaa markaa videogii ama sawirkii. haddaan iminka video ku dhufto tusaale ahaan videoga marka halkan aad ka eegaysaa inuu kii saxda yahay inuu yahay in kale. okay, halkan hoose waxaa la dhahdaa waa marka stop uu leeyahay iyo play. okay, halkan waxaa la dhahdaa timeline waa meesha ugu muhiimsan ee shaqadu ka dhici doonta ee videoyada lagu hagaajinayo codka iyo wax kasta la isku dul saarayo. runtii interface-ka guud intaas uu ka kooban yahay. wixii dheeraadana waan eegi doonaa insha Allah tacaala. kadib markaad soo furato programka Filmora 9 waxaa ku soo bixi doona interface-kan ama daaqadan ayaa ku soo bixi doonta. waxaad ku dhufan doontaa markaa new project. new project markaad ku dhufato markaa stage-kan waxaynu qaban doonaa in aynu soo gelino dhammaan fiidiyoyadii, sawiraantii iyo codkii aynu uga baahnay. waad iska xidhaysaa message-kan soo baxaya. dabcan waxaad ku dhufan doontaa markaa plustan ayaad ku dhufan doontaa. plusta markaad ku dhufatid waxaad tegi doontaa meesha fiidiyoyadaad kuugu save garaysan yihiin. marka aan tago meesha ay igu jireen fiidiyoyadii waan wada dooranayaa. marka haddii aad doonaysa inaad dhowr shay mar kaliya isla dooratid ka koowaad baad tegaysaa shift baad qabanaysaa keyboardka. ka ugu dambeeya ayaad tegaysaa marka 4 ama 8 aan doonaynay baad doorsamay. open baan odhanayaa marka waa uu wadayaa soo gelinaya marka. okay, saad arkaysaan iminka waxaa soo geliyay 1 2 3 4 5 6 7 8 waxaa inoo soo geliyay 8 video. haddii aan doonayo mar labaad inaan soo geliyo codadkii right click baan siinayaa import baan odhanayaa. dabadeed waxaan tegayaa markaa codkii aan doonayay. dabadeed waxaan ku dhufanayaa codkii aan rabay inaan adeegsado si aan ugu hagaajiyo fiidiyoyada. open baan odhanayaa. sidaas si lamid haddii aad doonaysid in aad soo gelisid sawiraan import baad odhanaysaa. waxaad tegaysaa dabadeetana sawirkaaga halkuu kugu jiray. marka aan tago meeshii sawiraantu igu jireen dabadeetana sawiraantii aan rabay baan soo dooranayaa. okay, open baan odhanayaa. iminka waxay noo diyaaraan dhammaan fiidiyoyada aan doonaynay inaynu ku hagaajino Filmora 9 iyo sawiraantii iyo codkiiba. stepka inoogu xiga wuxuu noqon doonaa in aynu fiidiyoyadan soo gelinay aynu soo gelino timeline-ka dabadeetana aynu habayno. kadib marka aynu soo gelinay dhammaan fiidiyoyadii, sawiradii iyo codkii aan doonaynay inaynu isu geyno si aynu u soo gelino dhammaan fiidiyoyada timeline-ka waxaan dul tegaynaa marka fiidiyowga ugu horeeya aan doonayna soo gelino oo kan ah halka plusta saad ku arkaysaan soo gelinaysaa. marka dabcan waxaan ka dhigaynaa project sidiisan ku daynaa. waxaa ku xigaya markaa fiidiyowga labaad oo kan ah. plusta waad taaban kartaa ama sidoo kale waxaad samayn kartaa in aad fiidiyowga intaad soo qabato soo jiido oo soo dhigto. sida halkan ku arkaysaan fiidiyoyadu halkan ay soo gelayaan, wixii codana halkan ay soo gelayaan, fiidiyoyada iyo sawiradaba halkan ay gelayaan. marka haddaan doonayo marka imika sawir inaan soo geliyo waxaan ku dhufanayaa tusaale ahaan kan oo kale click waan soo jiidayaa waan dul saari karaa. haddaan doonayo mid kale waan sii dul saari karayaa. hadba intaan doonayo ayaan dul saari karayaa. isagoo fiidiyowgiisa u socda ayaa waxaa soo dulgelaya sawirkii baa soo dulgelaya. okay, waayahay. waxaa kaloo soo gelin doonaa codkii. codku waa kan markaa isagana waa soo jiidaynaa. marka codku dabcan halkan uu leeyahay markasta. waayahay. haddaba fiidiyoyada waxaan doonaynaa imika fiidiyogana kale aad ayuu dheer yahay. si aynu markaa u jarno waxaynu sameynaynaa maqaskan yar baynu sameynaynaa. marka waan dooranayaa marka ugu horeysa clipka maqaskan ku dhufanayaa oo goynaya. marka meesha kale aan doonayo pointerkan geynaya marka ama playheadka dabadeetana cut baan sameynayaa. saasaan ugu goynaya marka
okay waxa ku soo haray sawirradii sawirku waa kan halkan soo dhig wad weyneyn kartaa wad yareyn kartaa play heerkan ku dhufanaya saas lamada sawirka ku xigana intaan ku dhufto ayaan play heerka taabanaya uu go'aya markaas aan u delete gareeyo intii dheeraadka ahayd waxaan ku dhufanayaa markaa clipkan doonay inta qaybtan doonay inaan delete gareeyo dadana delete oo keyboard ku taabanaya waa delete gareeyay kan laftarkiisana waan delete kan weyn waan delete gareynayaa delete okay kan waa soo jiidaya halkan ku soo dhajinaya isagana waa u dheeryahay waxa sameynaya markaa cut kanaan soo qaadaya clipkan dooranaya dabeetana cut oranaya sadarkiisana laba kala noqday qaybta dambaan iska delete gareynaya waaya codka soo haray codkuna waa u dheeryahay sadarkiisan waxa sameynaya markaa codkii baan ku dhufanaya dabadeetana meeshii ku bayknayd baan geynaya clip ku dhamaanay cut baan sameynaya qaybta dambaan dooranaya markaa delete baan sameynaya waaya intaasna waa googoyntii iyo qaabka loo jarjarayo clipyada haddaan doonayo inaan isdhaaf dhaafiyo kan dambe halka dambaan geyn karaa kan waa soo jiidaya halka horaan dhigi karaa saad arkaysaa kan soo jiid codka soo jiid waa isdhaaf dhaafin karaa marka hadba saan doonaan ka yeeli karaa waayahay marka imika clipkeeni iyo wixii dhan waan isku habaysanay kii xagga dambe la marinay kii halka hore la marinay wixii dhan waan isku geynay okay haddaba haddii aan doonayo codka oo kale in aan dalaco oo dheereeyo double click waan siinayaa halkan waxa iga soo bixi doona markaa options kala duwan marka volume halkan aad ka arkaysaa marka kor baan dalaci karaa hoosna waan yareyn karaa aad baan yareyn karaa kan waan yareynaya imika okay fade in baan sameyn karaa fade waxa weeyaan markuu intaan soo geliyo qaylay kuma soo geliyo in yar u yar aamusaya dabeetana si ayar u soo geliya marka fade in okay clipka kala dooranaya isagana fade out halka dambe ugu dambeysa asaad arkaysaa markaa imika halka wax yar baa ka muuqda yani codkii sidoo haa uma sii dhamaanaya ee si yar oo hoos u dhamaanaya waaya halkan waxa jira equalizerka oo dhammaan effects kala duwan ku jira marka hadba ka jeceshahay dooran doontaa haddii aad cod aad duubtay tahay waxaad sameyn doontaa background ka saari noise ama wixii qayla ay ku dhex jiraad ka saari kartaa oo dooran kartaa dabeetana weak middle strong hadba ka jeceshahay baad dooranaysaa dabeetana uu ka sifeynaya wixii cod dheeraad ku jira way markaa imka uma baahnin maadaama uu clipku diyaarsan yahay okay codkana hoos baan yaro dhigaynaa saan isku leekaysiina labadaba okay baan odhan videoga soo haray videoga haddaad doonaysa inaad sizekiisa oo kale aad ka bedesho tusaale ahaan imika halkaas aynu ka jaraynaa cut baan sameynaya marka videogaas oo kale aan doonaya marka isagana inaan optionskiisa double click baan siinayaa waxay soo bixi doonaa waxyaalo badan transform haddaan eego waa rotate gareyn karaa waan jeedin karaa maqluub baan ka dhigi karaa scale-ka sidiisa hore markaan ku dayno scale-ka waan soo weyneyn karaa waan yareyn karaa dhowr video waan ka dhigi karaa haddaan doono okay video labaad baan haddaan doono ama sawirkan aan soo dhigi karaa isagana sawirkan soo dabeetana isagana sawirka double click markaan siiyo transform scale-kiisaan yareynayaa isagana halkaasaan dhigi karayaa okay waayahay marka kaasina waxa weeyaan waa videoga markaad wax ka bedelisid flip baad ku sameyn kartaa dhinac kale aad rogi kartaa positionka halkan aad ka dhaqaajin kartaa dabcan halkan saas aad odhan kartaa waad ka bedeli kartaa halkan waad ka bedeli kartaa waayahay okay baan odhanay markaa videoga iyo codkiiba waxbaan ka bedelay codka haddaynu ku yaro noqono double click aan siiyo halkan waxaad arkaysaa codku imika left iyo labada dhagood markaad tusaale ahaan ku dhegeysanayso speakers ama headphones aad ku dhegeysanayso left iyo right codku hadba marba u siinaya marka imika dhexdu taagan labadooda waad ka dhex maqlaysaa haddii aad right ka u belisidna right ka laga maqlaya aad left u belisidna left baa laga maqlay dhexdeena ku kaga daynaynaa waayahay okay de intaa markaad dhamaysid waxaad ku soo dari karaysaa markaa imika titleski baad kusoo daraysaa dad doonaya inaan wada qaado aan highlight gareynaya dhammaan dabeetana dhinacaan doonaya ku durkin karaa
waxaan tegaya markaa iminka effects baa kan ku jira audio effects dan double click si adoo maqlaysaa ma filaya okay iminka markaa titles kan ku horeeyo title baan soo gelinaa marka openers baa jira iyagu waxyaalaha aad ku furfuran kartid barnaamijkaaga ayaad soo gelin kartaa okay waxaan sameynaya markaa mid kamid aan soo dooranay iminka kaasoo kale soo doortay inkastoo download inooga baahan yahay haddana waad soo download garan kartaa double click waad siinaysaa halka yar hoosta ayuu kusoo saari doonaa downloadka marka uu dhammaystiro waad soo qabanaysaa waxaad soo dhigaysaa timelineka sidii caadiga ahayd ee soo dhigi jirtay videoska iyo sawiraantaba okay marka dabcan waxaynu soo gelinaynaa hadda halka ugu horeysa dabeetana saad arkaysaan iminka saasuu soo baxaya marka titleka haddaan doonaya bedelo double click baan siinayaa waxaa halkan iga soo bixi doona your titles waxaan oranayaa Liban media okay haddaan doonaya qoraalkaa kale markaasaan ku dhufanaya isagan dabeetana waxaan oranayaa welcome to Liban media waayahay waan dhammaystiray okay baan odhanay markaa haddaan doonaya qoraalka waan yareyn karaa intuu soconayo calaamadaas markay soo baxdo ayaan saa soo yareynayaa okay marka iminka saad arkaysaan Liban media saas u soo baxaya haddaan doono halkan waan ka yareyn karaa si uu in yar u socdo waayahay marka haddaba effectskii audio-han ku daraynaa atomic bomb-kan oo kale saa soo dhigaya halkan ama hoostaan dhigo okay waqti badan buu soconaya markaa soo yareen waaya markaan play idhaahdo okay sawirkan aynu xag sare dhignay aad buu u dheeriyay sooma marka waan iska yara gaabinaynaa kanaan iska dhiid karaynayaa intaa yaroo keliya ku daynayaa welibana aan yareeyo markaa sawirka scalekiisa double click baan siinayaa waan yareynayaa okay saasoo kalaan ka dhigayaa waayahay طبعا waxaa jira iminka tusaale ahaan space-ka maran oo kale markaan doonaya inaan durkiyo طبعا sidan waan samayn karaa intaan wada doorto dhammaan wada doorto ayaan soo jiidi karaa ku dhejin karaa gidarka balse waxaa ka fudud waxaad samaynaysaa meesha banaan baad click siinaysaa right click baad siinaysaa triple delete ama shift iyo delete wataan saa dabeetana isagaa si automatic isugu dhejinaya markaa koona way kaas waa mid okay waayahay saad arkaysaan si fiican buu socdaa okay baan odhanayaa waxayna hadhay markaa transitions baan soo gelinaynaa transitionsku waxa weeyaan waxyaalaha u dhexeeya fiidiyoyadan ama sawiraantan u kala dhexayn doona okay marka imika aad bay fara badan yihiin transitionsku haddaad doonaysa inaad eegtid double click baad siinaysaa okay qaabkaas uu soo baxaya kaasi kan kale qaabkaas uu soo baxaya kan kale qaabkaas uu soo baxaya kan kale qaabkaas uu soo baxaya kaasoo kala dooranayna waan soo jiidaynaa haddaba labada video ee u dhaxayn doono ayaan geynaynaa okay haddaba imika haddaan kusoo yar dhaweeyo wuxuu soo baxayaa saas oo kale waaya si qurux badan buu soo baxay marka aad waxyaalo fara badan baa ku jira halkan saad arkaysaan kaasoo kala soo qaadanaya isagana waxaan geynayaa labada video baan dhexaysiinaya marka haddaan preview ku sameyno play haddaan idhaahdo waayahay waxay noo hadhay kuwan oo kale imika kan oo kale saasuu kaloo soo baxaya kan oo kale saasuu soo baxaya waayahay wf aad bay fara badan yihiin okay kaasoo kale isticmaali doonaa waan soo jiidayaa openarka iyo isaga ha u kala dhexeeyo waayahay openarka waxaan waa waxa lagu furanaya dabcan videoga okay nice waayahay kaasina waa mid okay kana isaguna aan ugu dambaysiinayna marka waayahay kuwan sawiraantana dabcan waad soo gelin kartaa halka ugu horeysa waad ka gelin kartaa adigoo yareyn karaya dabeetana markaad yareyso saasuu soo baxaya nice waayahay kan oo kale isagana sawirkaas horan gelinaynaa
marka transitionka intuu soconay waad yareyn kartaa marka falaadha yar ku soo baxdo ayaad saa u riixaysaa ilaa intaad ka doonaysid markayga markaa maasha allah si fiican oo qurux badan buu samaysmay waayahay ka transitionsku aad iyo aad bay fara badan yihiin oo aad ku habeyn kartaa ood ku qurxin kartaa fiidiyoyada kanoo kale iminka saasuu soo baxaya markaa waan soo jiidayaa waxaan dhex dhigayaa markaa labada aan doonayo okay waan yareyn karaa marka haddaan eego waayahay intaas waxa weeye markaa transitionska iyaduna waxaan oo dhanna waa hoosta ma ku wada jira basic 3D haddaad hoos u socoteen marba mid baad u gelaysa effectskaynu ku daraynaa effectska colorkaynu kala bedelaynaa markaa clipkeena marka kanoo kale clipkiisa wuxuu ka dhigayaa markaa uu yaro qurxinayaa marka kanoo kale filterska kala duwan ayaanu ku samayn karnaa marba mid baad tijaabin doontaa adiga laftarkaagu marka imika haddaynu ka koowaad oo kale kaasoo kale soo dhiganaa waan soo jiidaynaa halka ugu sarreysaan dhiganaa si uu wada saameeyo dhammaan fiidiyoyada aynu soo gelinayo qoraalka okay nice kaasna waa effects kala duwanaa waad tijaabin doontaa wixii extra elementkan ku dari doonaa waxay ka mid ah imika loofka haddaad sanaan shay yaroo jacayl ama wax ku saabsan aad samaynaysid waxaad kusoo dari kartaa waxaa ka mid ah shapeska kala duwan oo kuwan ah iyaguna marka waad soo down garaysa dabcan qaar baa u baahan inaad soo down garaysato waad soo down garaysan doontaa iminka kanoo kale aynu kusoo down garaynaynaa waayahay usoo down garaysamay waxaan dul dhigaynaa marka loofkaan dul dhigaynaa aynu ku samaynaa marka iminka markaas aad arkaysid wow awesome si qurux badan buu sameeyey kuwaasna waa elementskii kala duwanaa waad tijaabin doontaa mid kasta waxaynu gudbaynaa split screen oo ah labada video in aynu magaranaysaa markaad laba qof hadlayaan oo kale ka koowaad iyo ka labaad lasbarbar dhigayo tusaalahankan aan soo qaato ka aad bay fara badan yihiin intaasoo nooc baad ka dhigi kartaa marka intaasoo video ag dhigi kartaa marka imika tusaalahaan inuu mid yar kooban baynu soo qaadanaa kanoo kale soo qaadanaa waan soo jiidayaa waxaan soo dhiganayaa marka halka ugu dambeysa marka 1 iyo 2 baa ku qoran marka 1 iyo 2 marka tiraahid wuxuu ku geyn doonaa midiyihii salahan imika laba sawir baan soo gelin doonaa ama laba video badhe okay kan saasan soo jiiday halkaas dhigaya kan kalena waa soo jiiday halkaas dhigaya okay labadii video saad arkaysan way is yaalaan haddaan doonayo marka duration inta soconayana waa soo yareyn karaya labadii video way socdaa okay aan yar wada waxaan ku soo xidhaynaa markaa ugu dambeyntii okay horta aan idhaahdo saas way noogu dhammaystiray marka title kalan kusoo xidhaynaa ama outro wax la idhaahdo intro iyo outro ama opener iyo closer bay noqonaysa markaa kayn kusoo xidhan doonaa wuxuu noqon doonaa markaa qaar ka mida ku weynanu aan idhaahdo castingii yani ciddii soo diyaarisay ciddii soo farsamada ka dambeysay waxyaalahaas oo dhan marka credit baa la dhahdaa waxaas creditkan soo qaadanayaa xagga ugu dambeysaan dhigaya creditka markaa soo qaato aan halkan dhigo dabcan wuu soconaya marka saad arkaysaan double click baan siinayaa waxaan oo dhan markaa intaan ugu baahanahay un baan ka dhigayaa saddexdaas oo kale cast magaca horta koowaad oo kale waxaan odhan karayaa Liban jaamac qofkii labaad oo kale maxamed indo oo kale ka saddexaad oo aan odhan karo Ismaaciil oo kale Ismaaciil halkan koowaad waxaan odhan karayaa editor baan odhan karayaa ka labaad waxaan odhan karayaa cameraman ka saddexaad oo kale waxaan odhan karayaa waxaan odhanayaa audio effects oo kale way saasaan u dhammaystiray markaan dhammaystiro waxaan samaynayaa marka saas uu soo baxayaa okay haddaan doonayn xoogaha yaro wado waxaan sameynaya yar dheeraynayaa si uu yar u socdo
okay saasaynu ku dhamaystirnay okay baan oranayaa dabadeetana haddii aad doonayso inaad mar kaliya si fiican oo smooth u daawato waxaad ku dhufanaysaa halkan oo ah render preview ama interpret siinaysaa wuxuu dhamaystirayaa markaa halkan waxaad ka arki kartaa blue gayer si yar smooth isugu xigsiinaya markaa videoga ma istaagayo si fiican buu dhamaystirmayaa waa u dhameeyay saad arkayso markaa imika waan play garaynaya marka halka koowaad intaan kasoo bilaabo maxaan halkan idhaahdo ayaan play odhanaya okay waa u dhamaystiray markaa imika si fiican baynu u dhamaystirnay editingkeeni waan dhamaystirnay marka waxaan sameynayaa keliya imika waxaan tegayaa markaa waxaan u gudbayaa markaa imika stepkii ugu dambeeyay marka si aad video caadi uga dhigtid oo aad ula wadaagtid asxaabtaada waxaad tegaysaa markaa badanka ay ku qoran tahay export marka aad ku dhufatid waxa uu kuu soo saari doonaa markaa daaqadan magacaad u bixinaysaa waxaad oranaysaa my first video dabadeetana halkaad ku save garaynayso ayaad dooranaysaa marka aanu videoskan dabcan ku save garaystay settingska markaa waa saad arkaysaan 1920 waa resolution ugu fiican haddaad 4K ka dhigaysana dabcan waad sii weyneyn kartaa marka aanu dabcan halkan ku daynaya marka quality videoga halkan aad ka bedbedeli kartaa marka haddaad size-ka yareynayso kale good baad ka dhigaysaa laakiin haddii doonayso quality fiican bestiga lagu daayaa okay marka default-ka iskaga daynaynaa betterka iskaga daa okay dheh marka 25 frame per second weeyaan marka size-kiisu waa 30 MB waxaan soconaya waa 31 seconds marka intaan dhameeyo marka dabcan formats-ka aan doonaya halkan aan ka bedbedeli karayaa laakiin MP4 baan doonaynaa haddaad doonto YouTube-ka dabcan toos u gelin kartaa oo title-kii description tagskii wixii oo dhan baad marka hore intaad sign in ku samayso laakiin inagu local ahayn baynu ku save garaynaa okay dabcan waan u dhamaystiray dabeetana waxaan taabanayaa export markaan idhaahdo wuxuu toos u bilaabayaa in uu soo saaro videogii halkaas uu kaa tusayaa marka uu dhamaystirana waxaad toos ugu helaysaa videogii meeshii aad ku save garaysatay ah sidaad arkayso waa uu dhameeyey waxaad ku dhufanaysaa markaas si aad u daawatid videogii find target wuxuu ku geyn doonaa folderkii uu ku save gareeyey videoga sidaad arkaysa waa kan videogii markaa daawasho wacan طلع البدر علينا من ثني